بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ولا وبرنامج كان امتحاننا نوعها وأنا مقعدرنا برنامج تطوير طرق تدريس باستخدام التقنيات ومعني سوي هاي هرمارين تقابه بريدة دتك أيضا الإدكسان تكنولوجيا وأنا كهذا دونا برنامج لهذا زوم أو مهم أو عالم كان أدلو إدكسده جوابه برشدنا لا إدكسده زوم كا وأن كشر حلقة وحن كدجي إلى لحلقة يعني كدجي حلقات كاسي قاب يوكلا مهم سين قاب يوكلا هريان أنت معلنك خصيصة أنت أرضك خصيصة إرشادات كتلوين كودي وحن كشر هاي مقدمة ده قفل بناه كلها تلنا يا إن مقدمة marka hore dhageysto intuusan usoo gudbin xalaqaadka lehda qaybood aan ka dhigay saddexda qaybood waxay ka hadlayaan qaab adeegsiga ugu fudud ee zoomka qofka mobilka haysta macallin ha aado mise arday ha aado saddexda kalena waxaan uga hadlay qaab adeegsiga ugu fudud ee barnaamijka zoomka qofka haysta computer ama laptop xalqadani waxaynu ka hadli doonaa biidnillaahi tacaala qaabka ugu fudud ardayga uu qayb qaadan karo uu soo geli kara galaaska macallinka ee abuuray qaabka ugu fudud marka macallinka ma khusaysa arday bay khusaysaa ardayga markii qaabka ugu fudud rabo inuu fahmo waa markuu mobilka adeegsanaa ka hadlaynaa mobil markuu adeegsanaa qaabka ugu fudud ardayga uu qayb qaadan karo galaaska macallinka darsi ka bixinay oo markuu mobilka adeegsanaa ardayga waa wadada ugu fudud waxaan leenahay ardayda meel walba aad joogtaan cilmiga faa'iideysta oo siyaasada xilli walba aad joogtaan makaan walba aad joogtaan ka faa'iideysta culimada idinla joogta ka faa'iideysta culimada idinka fog idinku adeegsana programmada sida zoomka oo kale macallinka waxaan leeyahay macallinow ardayda u faa'iiday cilmiga ilaahay ku baray u faa'iiday meel walba aad joogto xilli walba aad joogto kuwa kula jooga u faa'iiday kuwa ka fogna u faa'iiday adigoo adeegsanay markaad u faa'iideynayso kuwa ka fog adigoo adeegsanay zoomka iyo wixii la mid ah qof walbana waxaan leenahay saasaan leenahay qofna ha faa'iideysto qofna loo faa'iideeyo waxa ugu horeeya aan ka hadli doonaa qodobada ee xalqadan ay ka kooban tahay muxtawiyaadkeedii qodobka ugu horeeya waa kow qaabka programka loo soo dejinayo markaad soo dejiso shaashadiisa ugu horeysa waxay ka kooban tahay labo wadada ugu fudud ardayga uu soo geli karo galaaska macallinka saddex sideeba ardaygu ku ogaan kara macallin galaaska inuu ku jiro inuu ka maqan yahay afar macallinka haddii galaaska uu soo xirto password uu saaro oo quful uu saarto ardayga haddii passwordka uu siiyo passwordka haddii la siiyo seebuu u furan karaa qolkaasi albaabkiisa shan haddii ardayga uu fasaaqaato albaabkii uu furto albaabkii uu taagan yahay macallinka inuu u ogolaaday inuu galaaska ardayga dhex fadhiisto iyo inuusan u ogolaanin ardayga seebuu ku ogaanayaa lix haddii ardayga uu galo sidee buu isu tacriifinayaa magaciisa seebuu u gudbinayaa si ardayga macallinka u ogaado arday hebel inuu yahay toddobo haddii arday galaaska uu galo cod la-aan ay qabsato macallinku ma maqlaay ardayga ma maqlaay macallinkiisa macallinkin ardayga ma maqlaay seeba loo halkeeda loo gaaraya sidee buu ardaygu u fogaan karaa tashwiishka dadka kale inuu tashwiisho codkiisa ugu tashwiishiyo maalan agtaadii laga hadlayaa ama tashwiish baa dhacay macallinku wuxuu ku yidhi codkaada naga xeer dadka kale waxay yidhahdeen waana tashwiishinaysaas qaabkee ayuu halkii u heli karaa ardayga sagaal haddii xiisadu ay dhammaato ardayda oo fasax qaatan macallinkan ardayda u faso sidee buu ardayga galaaska ugu baxayaa kow waxaan ku bilaabayna dejinta programka waxaa laga soo dejinayaa meelaha dadka ay wax ka soo dejistaan xisnul muslimka iyo kitaab quraanka ay ka soo dejistaan haddii iPhone aad wadatid App Store ka soo deji haddii Android aad wadatidna Google Play oo Samsung iyo wixii la mid aad wadatid Google Play ka soo deji markaad soo dejisid iconka programku waa kana zoomka ku dhufo markaad ku dhufatid si aad u ogaato shaashada waxay ka kooban tahay shaashada zoomka waa tana waxay ka kooban tahay saddex qodob ay ka kooban tahay qodobka koowaad batoonka koowaad join a meeting waxa loogu talagalay qofka number khaas ah soo siiyay sign in waxa loogu talagalay qofka macallinka ah oo markuu galaas furay sign up waxa loogu talagalay qofka account cusub furay ayaa loogu talagalay saddexdaba macallinka ma khusayaan marka ardayga ma khusayaan macallinka ay khusayaan iyo arday qofka number khaas la soo siiyay haddaba maxaad samaynaysaa marka ka noqo pagekan safadan ka noqo waxaad u noqotaa shaashada caadiga mobilka aad markaad aadid macallinka waxaad ku leedahay qaabkan u soo geli kara macallin isaga ku dhihi doona macallinka waxaan kuu soo diray link ayaan kuu soo dirayaa WhatsApp aan kugu soo dirayaa link markuu kuu soo diro qaabkaas u yaalaa linkiga join zoom meeting meesha ku qoran tahay buluug ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa qolkii saasaad ku gelaysaa qolkii marka taad ku dhufatid seed ku ogaanaysaa macallinka inuu ku jiro inuusan ku jirin macallinka waxaad ku ogaan kartaa inuu ku jirin message-kan ayaa kuu soo baxay waiting for the host
to start this meeting qofka mas'uulka uu soo gali doona ayaa ku qoran hadii shaashada ay ku soo baxdo waxba welwelin waan fahmi way zoomkii dad badan bay qabsatay iska sug macalinka kuma jira uu soo gali doona ama macalinka la hadlo leedahay macalin qolkan soo galay kuma jirtid goormaad soo galaysaa hadii macalinku ku jiro maxaa dhacay linkiga macalinku si markaad ku dhufatid linkiga inta badan macalinku wuxuu ku soo raacinaya password furihi linkiga markaad ku dhufatid oo macalinka ku jiro wuxuu ku leeyahay password geli oo qolka furo qolka furu ku leeyahay furihi marka passwordka macalinku soo siiyay markii linku ku soo daray passwordkii kugu soo raaciyay ku fur inta badan waxa way macalinka haduu ka furo passwordka uu ka furmaya hadii laakiin macalinku ku xirto waxa way waa inaad gelisaa markaad geliso okay ku dhufo marka okay markaad ku dhufatid waxa ku soo baxay horta kuma taa adigu magacaaga meesha geli macalinka ku aqoonsaday halka magacaaga aad gelinaysaa magaca markaad geliso okay ku dhufanaysaa kadibna magaca marka hal mar aad geliso marka labaad aad soo galayso magaca uu kugu diyaarsan automatic u qaadanay okay baad ku dhufanaysaa maxaa ku xiga numberkaad gelisay magacaad gelisay macalinka miyuu ku soo fasaxay inaad qolkii toos u dhax fariisato ama kuma fasaxin seen ku ogaanina ila albaab markaad soo garaado macalinku inuu ku fasaxo inaad fariisato macalinku waxa uu soo bixi doona message oo hebel ayaa qolkii ku ka fasax qaadanay inuu soo galo ma ogolaanaysa macalinka admit ayuu dhixi doona saas uu ku ogolaanaya intuu ka ogolaanay adna message ku soo baxay oo wuxuu ku leeyahay suug macalinka uu ku ogolaan doona ama please wait the meeting host uu ku ogolaan doona qofka qolkan mas'uulka iska sug marka tan hadii ku soo baxdo macalinka uu ku ogolaanay mar dhow iska sug marka maxaa ku qolkaad gashay cod la'aan baa tahay qolka waad gashay macalinkana kuma maqla adna ma maqlaysid sid ku ogaanaysa horta inuusan macalinka ku maqlin adaada maqlayn halka waxa ku qoran qaybta bireeda meesha iyo foonka madaxa la gashta ka muuqda hadii uu muuqdo codku uma furna waxaad ku dhufanaysaa marka ku dhufo kadibna waxaad ku dhufanaysaa qoraalku ku soo baxay call device audio ku dhufanaysaa ka marka ku dhufto codku ku furmay marka codku ku furan yahay macalinku ku yiri camera furo start video ku dhufo halka ku dhufo kamerada ku furmaysaa waxa ku soo baxay sawirkaada ku soo baxay marka macalinku ku yiraahdan kamerada iska xir stop video baad leedahay meeshan waxa muhiim ah mood meesha ku qoran tahay adigoo hadlaayo oo macalinkuna ku maqlay adna waad maqlaysaa tashwiish ayaa areada agteeda ka dhacay cod baa soo baxay ardaydu waxay ku yiraahdeen hebel aan la tashwiishina macalinkuna wuxuu ku leeyahay codkaadi uu tashwiishay naga xir hageed ku dhufanaysaa mute ayaad ku dhufanaysaa halka mute ka ku dhufanaysaa codka hadaad xirto qof furi kar mala wala arday aan furi karin wala macalin aan furi karin hadii uu baahdo waxa ku xiga hadii macalinka codka inuu furo hadii uu baahdo ilaa waxa uu baahan karo macalinka inuu cashar ka dhageysto ama su'aal uu ku weydiyo hadii uu tama macalinka inuu furo ma furi karo ilaa message-ka inuu ku soo dhacmo message-ka muxuu leeyahay unmute myself ma lagu furaya codka aad xirtay macalinka muu ku furi karaa muu ogolaanaysaa uu ogolo haadhe ama qaybtan dambe stay meesha ku qoran tahay hay oo ama kuma ogolaanayo macalinka warkiisa diidan marka macalinow waad furi kartaa marka tan ku dhufo codka ku furmay galaaskii waad ku jirtaa casharka waa laga dhageystay waxaad u baahatay inaad ogaato dadka meesha ku jira iyo dadka tashwiishina iyo dadka codka u furan yahay iyo tiradoodii inaad ogaato maxaad ku dhufanaysaa باتسباتين أيات كل باتسبانتس أيات كل فنيسا والمشاركون ومعنيد كان مركز كل فتيت وحكون صبيه دونا أنت مش كوتيرتا أديكو كوا أو مش مية كو قرنتاي إيو مش هوست كو قرنتاي قفك مش معمولة معلنكا إيو أنت كلا وقصوا قيب قليال أو عشرة كدقي سنة waxa ku xiga macallinkii waad u baahatay inaad la hadasho inaadan marko cod aad kula hadlin oo message inaad u qorto macallinka hadaadan u baahan in codka dadka ay gaaraan maxaad samaynaysaa message ayaad u qoraysaa message-ka waxaad ku dhufanaysaa meeshan qaybta midigta mo ayaad ku dhufanaysaa kadibna chat ayaad ka dooranaysaa oo qoraal u qor way macallinka chat markaad ku dhuftid wax ku soo baa shaashadan meesha wax ku qor meesha qoraalka lagu qori lahaa meeshan qofkii loo diray everyone maad u diraysaa qof walba maad u diraysaa maya everyone meesha iligteeda ku dhufo waxa ku soo bixi doona inaad ka doorato qofkii aad u diri lahayd everyone maad u diraysaa aadam shaabdullaahi oo hoosta oo macallinka maad u diraysaa maxamed bashiir ama xasan maxaad samaynaysaa marka ka dooro aadam shaabdullaahi maalan ka dooro aadam shaabdullaahi ka doortay message-kan assalaamu calaykum aan u qoray kii aan rabaan u qoray message-kii kadib maxaad leedahay send ayaad leedahay send markaa ku dhuftid message-kii uu galay marka halka waxa ku dhamaaday مثلا 10ka ku dhamaaday xiisada ku dhamaatay macallinku wuxuu yiri ardayda waad fasaanteen buu yiri saad ugu baxayso qolka marka waxaad ku dhufanaysaa leave marka ku dhufatid waxa ku soo leave meeting shirka ma ka baxaysa ha waan ka baxay leedahay halka waxa inoogu dhamaaday halqadeeni inta wixii dheeri ah oo aad fahmi weyda telefonkii oo kana WhatsApp-ka ku save garayso message iga soo qori weydi ama Gmail-kiga qofkii ka faa'iideystay programkan fahmay oo ila fahmay qaabka aan u soo sharxay ha dhaqan geli soo dhaqan gelinaya qolkayga soo galo qolkayga
linkay soo galaya message ha iga soo diro whatsappkiisa macallinow inaan dhaqangeliyaan rabaa whatsappkaadii whatsappkayga igu soo dir linkiga waa magacayga saasa la yiraahdaa saasaad u soo qoraysaa waad ii soo qortay markaad ii soo qortid linkigan kuu soo diray linkaad ka soo galaysaa insha Allah taala markaas kadib aan ku fahansiinaya halqadeen labaad waxay ka koobnaan doontaa insha Allah taala sida macallinku qol u sameyn kara hadii macallin aad noqoto sida qolkaad u sameyn lahayd ardayda ay soo gali lahaayeen passwordna leh linkigana leh saad u sameynaysaa هذا وصلى الله وسلم على نبينا وولالكين آدم شاه عبد الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم السلام عليكم ورحمة الله